دي أديكوا بعد شرف لهين يا أبها جرك قبصنا يا بريء يا ولالك جرك قبصنا يا بريء اللي بناك على تالاي برها برشة تالا عدو البحر كعداونا يسال عقلان جوابها اللي عويه جوابها إن اللي أنت سقطت ماده جوابها اللي كفتمه جوابها اللي حفالتمه ما صفر يسن كريو نك ولا شيء دي شرف درة برشة أحد ذي كله ده صدح بالو قدوبا صدح مرة لو قدوبا ما كون نكدنت قبل ما قالوا قدوبا شن بالو قدوبا شن ورموقال كيجاني وحكوا صعدا قبلها صوماليات حبلها صوماليات أيوكوا صعدا قبله معلمان وحنا ركيي مقالو برا برشة الضوء رجينيو قبل الأوران أيو قبل أولال كد بدلي أولال كد باسلان يلي أولال كد ما قرنا يسا مركي مقالو الدب أصير على قبلها أيقونا أنت هذا بدن عن شحمد أي سمعنا أيان أما مقالو أي دوبيان على أديقوبا نحس مقال كني واحد دوني أنا كلها الله قبلها الصوماليات شرفت بدن قبله واحد وجاتان أما أدي يقين ستان أو أد حقيقة ستان نينكو أما ويلكو وحو شرف لي هاي وقيم لي هاي ورجل حساب تمي كريا ورجل سكد عين كريا ورجل جوسن كريا ورجل حفال تميا أنت أديكو شرف لي هاي أنت أديكو أدورسن تهاي أنت أديكو أدلول تهاي مر هداد أديكو قيمة بيشو مر هداد أديكو شرف بيشو مر هداد أديكو برشة نحن هذا وحوي هاي كان نقطة السجونا وحوي هاي بنقنيا ولي السجا كادرنا ninka walaashii bulshada dhexdeeda ay ka sharaf beesho isagana bulshada dhexdeeda wax sharaf kuma yeelanayo asaagii lama kaftami karayo asaagii lama xifaaltami karayo asaagii kada inuu ka sareeye xitaa lama fariisan karayo goobaha lagu caweeyo goobaha ay dhalinta isugu timaado goobaha lagu kaftamo goobaha lagu xifaaltamo ma soo fariisan karayo ninka walaashii de sharaf darra bulshada dhexdeeda ay ka leedahay isaguna waa ka dareeyaa hal weed markuu isku dayo inuu yiraahdo ruuxa leeyahay wartii ogay baa kula dhalatay ward meeska tagniyo garanaysa waxaad ogaataan gabdhayow inta adinku sharaf leedihiin inta adinku qiimo leedihiin inta adinku dhowrsantiin ayaanu annaguna sharaf leenahay oo aynu sanka taagi karnaa oo aynu asaagan ka sareyn karnaa oo asaagan ugu sharaf badnaan karnaa dhamaan gabdhaha Soomaaliyeed kama hadlay waxa jira gabdho sharaf iyo qiimo iyo qaaya ku jooga baraha bulshada dhexdeeda war waxaan waad ka tagaysaa duni weeye waad ka dhimanaysaa waad ka dhamaanaysaa dhaxal wanaagsan dadka qoyskaaga iyo ehelkaaga iyo walaalaha iyo dadka kula dhashay sharaftooda iyo cizadooda iyo karaamadooda dhulka hala gelin adigu gabadhu inta aan la guursan ee gurigooda ay joogto dheeman iyo lul weeye sharaf bay leedahay markii la guursado ee ay nin u dhaxdo ee aqal gashana sharaf bay leedahay qaaya iyo qiimo ay leedahay markii ay hooyo noqoto ee caruur dhashana sidoo kale sharaf iyo cizo iyo karaamo ay leedahay gabadha Soomaaliyeed mar waliba sharaf iyo karaamo iyo cizo ayay leedahay iyo tixgelin ha ku cayaarina oo ha baabiinina inaga hadaynu nahay dhalinta Soomaaliyeed ama ragga Soomaaliyeed iyo kaftanka inaga xirina dad badan ayaa ku doodaya gabdhaha la dilaya ragga dilaya waxa weeye waa ragan waxba ahayn adigu u doodaya ee qaylinaya inantan qawsi qaylinaya walaasha haday sidaan lahaan lahayd maxaa samayn lahayd de waa dili lahayd ma ahane waa ka guban lahayd ma garanaysan war dumarow sharaftiina waa sharaftayada daadigu sharaf lahayn sharaf mali anigu garanaysa marka walaalayaal sidaan waxa laga bedelo inta wanaagsan way wanaagsan yihiin allaha si wanaajiyo waxaan la hadlayaa inta ku fikiraysa ama inta hadda ahba dhaqan xumida soo gudbiso war gabadh baa tahay bari mustaqbal baa doonaysa وبعدين هذا دونيسا أيينا النقطة دونيسا وروح wanaagsan bulshada ugu tag oo dadka kula dhashay ehelkaaga iyo qaraabadaada iyo raximkaaga ayagu sharaf tiri ma garanaysaa ninku marka garka la qabsada oo la baryaya oo raggu waxa way isugu iimaanayaan waa marka gabar laga doonay oo gabar laga rabo way ma garanaysaa hadii adigu baad sharaf lahayn yaa aabaha garka qabsanaya oo baryaya yaa walaalka garka qabsanaya oo baryaya ilaa banaanka cilada taalaay baraha bulshada taalaay cid walba halka ka daawanaysa lacag laan ma garanaysaa sharafteena waa sharaftayada waxaan baraha bulshada lagu wado hala joojiyo dadkan oranayo waxa weeye ma garanaysaa qaylidaan waa waray iyo naaguhu u naxariisan weeye war waxa xamaad inantii dhaqan xumaata loo taag waaya loo tabar waayo walaalkeed iyo aabaheed waxa weeye iyo reerkoodu xaq bay u leeyihiin inay qabsadaan xaq bay u leeyihiin inay dhabiga ka waraabiyaan xaq bay u leeyihiin hawl cad weeye inuu dhabiga ka waraabiyaan xaq bay u leeyihiin adeer inay qabsadaan weeye ileen qof walba qofkii ka waalan isaga qabsanaya ma garanaysaa gabar mid kale wiil la dhalatay ee walaal leh waxay doonto ma samayso cidina cid kalena waxay doonto iyada kuma sameyn karto ma jiro cid gabar
لا دلتay wuxuu doono ku sameyn karayo haduu nin rag yahay walaashiina waxay doonto ma sameyn karto weedha aan ku celcelinayo mar walba idin leeyahay waxa weeye hadii adigu aad sharaf leedahay karaamo leedahay oo qiimo badan tahay oo asturan tahay walaalka ragga ugu sareeya goobaha kaftanka iyo meelaha rag ay ku xifaaltamaana waa lagu qadariyaa warkiisana la dhageysanaya ragguna way ka dambeynayaan marka laakiin aad sharaf daran tahay isagu xitaa isaga ku dhiiranayn in uu tago halka rag ay ku goosgoostaan waxa leeyahay gunti gunaanadkii sharafta hala dhowra karaamada hala dhowra dhaqanka hala ilaaliyo Soomaali bay nahay diin baynu leenahay dhaqan baynu leenahay ninka markuu dhinto karfanta saddex baa lagu duubaa saddex mara lagu duubaa markuu ninka dhinto gabadha meeqa lagu duubaa shan baa lagu duubaa shan si loo ilaaliyo jirkeedii asturnaanteeda loo ilaaliyo iyadoo meeyda qabri la gelinayo adiguna banaankaas soo dhigaysaa oo dadkii dhan baa bulshada dhan baad ka waraabinaysaa war waa mahadsantii sharafta hala dhowro